kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idin wadaagi doonaa khudbada waxa la jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxyaabihii uu kaga hadlay arrinta Soomaaliland iyo sidoo kale arrinta maamulka Puntland waxyaabihii uu ka yiri dhinaca kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka Fariin ayuu u diray maxay tahay iyo sababta uu markaas ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xilligan ku qasbaysan inuu sii joogo magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari muxuu ka yiri maxaabiistii ku xanibneed magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari ayaan idila wadaagi doonaa qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona xiisad markaas u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo ka soo cusboonaatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhaqaaqyada halkaas ka soconaya ayaan idila wadaagi doonaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaan muuqaalkayga waa markaas ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ama dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamadii ugu badnaageysay duleedka deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan dhaqaaqyada halkaas ka soconaya maxaa ka jira in Cali Jeyti Cismaana waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan uu ku soo biiray dagaalkan markaas ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay iyo xiisada maanta ka taagan bariga gobolka Hiiraan oo u dhow degmada Maxaase ee bariga gobolka Hiiraan ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo Talaada taariikhdu ku aasaysan tahay 4 bisha 8 Agosto sanada 2026 haddii aynu ku bilaawno ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa khudbada waxay ka jeediyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu kaga hadlay arrimaha xasaasi ah oo ku aadan xaalka maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya maxaabiista ku xiran magaalada Laascaanood ee maamulka Waqooyi Bari odayaasha dhaqanka beesha dhulbaantay waxa uu ka dalbaday in la sii daayo maxaabiista ku xiran maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya oo laga haysto maamulka Somaliland waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in markaasi maxaabiistan iyagoo maxkamad la soo taagin la sii day doono waxa odayaasha dhaqanka iyo shacab weynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya uu ka codsaday iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdiqaadir Cali Firdhiye in markaasi si waajibaad la'aan ah markaasi shuruud la'aan loo sii daayo maxaabiista laga haysto maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya waxa uu tilmaamay in maxaabiistan ay yihiin kuwo markaasi dad Soomaaliyeed oo siyaasadda ay kala geystay balse xilligan lagu qasban yahay sidii loo soo deyn lahaa maxaabiistan laga haysto maamulka Somaliland dhinaca kale maxaabiis fara badan oo laga haysto maamulka Waqooyi Bari ayaa iyaguna ku sugan maamulka Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland waxa uu sheegay in maxaabiistaasi ay kala hadli doonaan maamulka ugu sareeya maamulka Somaliland ayna markaasi ay weydiisan doonaan in si shuruud la'aan loo sii daayo maxaabiista laga haysto maamulka Waqooyi Bari beesha dhulbaantay iyo sidoo kale madaxda sare ee maamulka Waqooyi Bari waxa uu ka codsaday in markaasi si shuruud la'aan loo sii daayo maxaabiista laga haysto maamulka Somaliland dhinaca kale waxa uu ka hadlay dagaalka ay kula jiraan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxa uu sheegay in markaasi siyaasadda Soomaaliya aan looga hadli doonin dibadda dalka waxa uu soo hadal qaaday shirkii ka dhacay magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda waxa uu sheegay in markaasi halkaasi aan loo tagin in arrinta Soomaaliya looga hadlo balse halkaasi ay madaxda dalka u tagaan sidii looga hadli lahaa xaaladda ciidamada AYSOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxa uu la tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeyay siyaasadda Soomaaliya looga hadli doono gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyay in markaasi ka soo horjeedaan doorasho dadweyne oo dalka ka dhacaysa waxa uu la sheegay in xilligan wixii ka dambeeyaba la qaban doono doorasho qof iyo cod ah oo markaasi laga qaban doono maamulada dalka iyada oo aynu ogeyn in Koonfur Galbeed iyo Galmudug lagu kala baxay doorashadii qof iyo codkeeda halka maalmaha soo aadan la filayo in laga qabto maamulka Hirshabelle doorasho qof iyo cod ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in cidii u baahan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay markasta gogol ay u fidinayaan ayna kula kulmayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho kaliya waxa uu sheegay inuu halkaas uuna tagi doonin cadaadis uga yimaado xubnaha beesha caalamka ama dalal shisheeye waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyaba loo baahan yahay in laga wada hadlo arrinta Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Laascaanood maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya oo habeennimadii xalay halkaas khudbad xasaasi ah ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya maamulka Puntland oo hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu Saciid Cabdullaahi Dani ku eedeeyay inuu kala geynayo Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi si qasab ay ku qabsan doonaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland waxa uu sheegay in Saciid Cabdullaahi Dani uu ka shaqeynayo sidii loo kala goyn lahaa siyaasadda Soomaaliya waxa uu sheegay in ay dhawaan kulmi doonaan taliyaha qaybta kontaroolka ee militariga Soomaaliya General Jamaal Jaamac Takar waxa uu sheegay inuu kala hadli doono xaaladda ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan maamulka Puntland General Jamaal Jaamac Takar oo ah taliyaha qaybta kontaroolka ee militariga Soomaaliya ayaa isagu waxa uu ku sugan yahay magaalada Garowe caasimadda Nugaal ee maamulka Puntland waxaana la sheegay in kulamo laga shaqeynayo hoose oo ay markaasi ku kulmayaan labada markaasi mas'uul
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre hadaladiisa ayaa kusoo aadaya xiisada maamulka puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay markaasi u muuqato iyadoo xiisadu ay sii kala fogaanayso dhinaca kale maamulka puntland dhowaan maraykanka ayuu kala saxiixday heshiiskaasi waxaana markaasi xogaha qaar ay tilmaamayaan in maraykanku uu puntland ugu yeeri doono dowlad siiskeeda isku maamusha. hadalka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa kusoo aadaya iyadoo magaalada gaalkacyo gobolka mudug ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan. habeenkii xalay ahayd waxaa halkaasi u goostay ciidamo ka goostay maamulka puntland iyagoo ku biiray ciidamada BSF ee markaasi ku sugan waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhanka ay puntland ay maamusho. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaana hadaladiisa sidoo kale waxay kusoo aadayaan iyadoo Siciid Cabdullaahi Deni uu wajahaya cadaadiskii ugu xooganaa dhinaca magaalada gaalkacyo. haddii aynu eegno magaalada gaalkacyo gobolka mudug saaka xaaladeedu way degan tahay. odayaasha mudug ama markaasi gobolka mudug kasoo jeeda ayaana ka shaqaynaya sidii ayna markaasi xabadii uga dhici lahayn magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. habeenkii xalay ahaa warbaahinta waxaa kasoo muuqday ciidamo markaasi ka goostay ciidamada uu hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Deni waxayna ku biireen ciidamada BSF ee ku sugan waa markaasi xerada Istanbul ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. halkaasi waxay sheegeen in markaasi Siciid Cabdullaahi Deni uu marnaba uuna markaasi ayna aqbaleen inuu ka horkeeno dadkii iyagu ay u dhaarteen ee markaasi ay kasoo jeedaan. xiisada Siciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha maamulka puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan soo cusboonaanaysa. Siciid Cabdullaahi Deni waxa wajahaya caaysho kala duwan waxaana markaasi ka goostay ciidamadii ugu fara badnaa oo markaasi ka goostay ciidamada uu hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Deni. waxyaabaha kasoo kordha xiisada maamulka puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi isku haya magaalada gaalkacyo oo iyadu ka wada tirsan maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug. wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa dhinaca gobolka Hiiraan haddii aynu eegno magaalada Teedaan ee gobolka Hiiraan oo ay dhawaan la wareegaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaa duleedkeeda maanta la geeyay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa halkaasi loo geeyay in markaasi si degdeg ah loogu qabto deegaanada qacanta kaga baxay ama markaasi qacanta dowladda ka baxay. militariga Soomaaliya qaybta 20aad ee markaasi ku sugan gobolka Hiiraan ayaa wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay markaan ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin dalka ama markaasi kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan. gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan war ka soo baxay habeenkii xalay ahaa ayaa waxa uu sheegay in xilligan uu fadhiga uu ka sii kici doono haddii dowladda federaalka Soomaaliya ku fiirsato ciidamada dadka deegaanka iyo loo yaqaan macuusleyda iyo militariga Soomaaliya qaybta 20aad dagaalkan weyn ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. degmada maxaas ee gobolka Hiiraan degmada Moqokori iyo sidoo kale deegaanka Teedaan deegaano kale oo hoos yimaada kooxda Al-Shabaab ayaa si weyn ula wareegay waxayna haatan ay ka talinayaan in markaasi ay xanimaan dhaqdhaqaaqyada markaasi wadada weyn ee xiriirisa degmada Matamaan iyo sidoo kale degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. xiisadu wali waxay u muuqataa mid markaasi la isku arki doono dagaal ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya militariga Soomaaliya qaybta 20aad ayaana wada abaabulkii ugu dambeeyay ay doonayaan inay kula wareegaan dagaalkan oo ay markaasi la geli doonaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. waxyaabaha kasoo kordhana wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa.